بقول فرمين إنه كارثة إذا كانوا سووا صيدمان بس عين إذا كان عامل يسوي أنا كويس ciidamada BSF oo qayb libaax leh ka qaadanaya gurmadka lagu samata bixinayo dadka ay saameysay abaarta ka jirta deegaanada Puntland ayaa maanta ugu deeqay taakulo isugu jirta daawo biyo iyo caano dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolka Cayn oo maalmihii u dambeeyay la ildarnaa xanuuno iyo abaar baaxad leh oo sababay oon iyo cunto la'aan agaasimaha gobolka Nugaal ee ciidamada BSF Puntland gaashaanle sare Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ku wareejiyay deeqdan مسؤولين isugu jirta xildhibaano wasiiro iyo maamulka gobolka Cayn waana deeq laga soo jaray mushaarka ciidamada BSF ee Puntland dadka walaalahooda oo dhibaataysan oo laga soo sheegayo dhimashada abaartu hayso وهذا حنون كودر مضي وعايز يقول شيء وعانه ودودي والنفقة له وفلبوين يوحول بله أي نوعه وبيه والله قلت لك لي بيه نظيف كاي ودور بقول كرتونة أنت أصلاً قلت لك لي اللي جالسيو قبل كاس عين تذكرت على السن حلي بنا ذا يعني كورة كني يجون ونيجوا من جارهان وحنا الله المضي اللي جيو دباتو كشفت الديان كفرتنا حلي بنا نسقى أفكرتين ووضعنا قرمت كهدي له إنه أنت تبرت ياه deegaano badan baan ka soo shaqeynay oo aan wax geynay gobolka bari Nugaal Mudug Sanaag meel badan baan geynay kana saaxan mayno dadka aan u dhimanayno qofkii ku dhintaba ku marka waxaan sheegaynaa dadkayga waa u dadaalinaa waana hadii ilaahay idinka idmo waxaan qaban karnaa waa qabanaynaa waana wadaynaa dadaalka joojin mayno إلهي ما هذا إلهي هالك سوق كأني وأكون مهتسين معاونة أي إذا كبيسف وكيكون عويان ما لا أقول لي تهتا إن دجاجنا ذا بطلان أو وكسر عضو كتير عضو كشوب بيوت كأوها قابل كعين إلى دلانت يو هذا الكيبا حيكون كان إذا كبيسف أقول من يجو قصة شري مشاهر كذا ينفتو ذا أنا أقول من دجاجنا ذا كلا كتير سنبطلان وواحد لو فرح حوي وأنا أقول ما هنقلنا يجو قعنا دوتك كنت دفاعية قعنا إني مشاركة قادنيا كجتران يعني أي مشاركة قادنيا هو يكون عويان شعب كذا وواحد إله لو ما نقه ويجنا هذه أيضا هو أماننا مدح يس سراكيل يعيدنا هامبا عيدنا وعيد كلي أنفلا يو عيدنا قعن كجيستي دباتوي كشرا تجانا ذينا بطلان marka aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa waxayna ka kooban tahay 60 kartoon oo isugu jira daawo iyo nafaqada dhallaanka iyo hooyada dhallaanka waxa ku jira iyana caano iyana lagu talagalay dadka maatada ah ee hooyada iyo dhallaanka biyo la cabiyo nadiifta ah iyana ilaa 300 oo kartoon ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa in ay si ahayd ay u gaadho gobolka meelaha ugu daran ee xanuun ka jiro oo gobolka Cayn waxaanu hadda ku wareejinaa gudoomiyaha iyo xildhibaanada ka soo jeeda gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka iyo xildhibaanada xubnaha golaha xukuumadda ee baarlamaanka ka soo jeeda gobolka Cayn halkan waxaan ku gudoonay daawo biyo iyo caano iyo nafaqo kale oo loogu talagalay dadka nafaqada daran ee xanuunku hayo ee gobolka Cayn ku dhimanaya arinta waan uga mahad celinaynaa ciidanka iyo wasiirka iyo agaasimaha iyo cidii ka soo shaqeysayba arinta iska soo goysay iyaguna mushaharkooda ka soo gooyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta ciidan wax keena oo mushaharkiisa wax ka gooya oo wax keena waa ciidankii ugu horeeyay waana u mahadnaqaynaa waxaan arki jiray ciidan wax doona laakiin ciidan wax keena ma aan arki jirin idinkuna waxaad gasheen nambarkii koobaad taa ogaada aadna waad ugu mahadsantiin talabaad
daawadaad noo keentay waa ku mahadsantihiin annaguna waxaanu ballan qaadnay inaanu dadkii gaadhsiino waxaanuna u garannay magaalada la yidhahdo Farjanno oo ka tirsan gobolka Cayn oo aad loogu baahisan yahay oo dhibaato badan ay ka dhacday oo dad badan ay ku dhintay oo hadda ay marayso kaligeed marka deegaanka kale laga soo koobo dhowr iyo 10 qof dhimashadu ay marayso dadka yaalaana hadda ay jiifaan ay marayaan ilaa 180 qof oo buka iyo dad badan oo ku soo barakacay oo xoolaha ay ka dhamaadeen ay joogaan maanta iyadaan u garannay xubnihii xildhibaanada iyo gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka waa joognaa waxa la yiraahdo dadkana waxaan u sheegaynaa annagu inaanu wax u qaybinano marba meeshii daran ee liidata ee jilicsan inaanu ku horraysiinano wixii kale ee yimaade ee gacantayada soo gala ama xagga dawladda ka yimaada ama xagga shacabka ka yimaada ama cid kale ba xaggeeda ka yimaade inaan u soo gudbin doono waxaan kale u sheegayaa dadka maamulka gobolka ka shaqeeya ee barasaabka iyo isduwaha caafimaadka inay dadka wax u qaybiyaan la xisaabtamaan annana waa ka dambaynaa oo la xisaabtamanaa waxa la yiraahdo cabashooyinka la sheegayana inay biyaan aad iyo aad Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran